weliga axmedow miyaad aragtay waxaad arki jirtay baabuur daabulaya raashin ama deked ka daabulaya ama bakhaar ka daabulaya waa markii iigu horreyseen arko noloshayda saacado ka midan aan anugu laftayda ku dhex qaatay ibni aadan bakhaar ku xaraysan oo la daabulayo dagaalka waxaan la yidhaahdaa wuxuu leeyahay gunnimo dagaalan iyo sharaf dagaalan gunnimo dagaalanku waxa weeyaan waa marxaladda ugu xun dagaalka waxa weeyaan dagaalka markay laba ciidan islaynayaan dee way kala calaf qaadaan oo nin waliba hubkiisa sisto laakiin gunnimo dagaalanku waxa weeye nin aan waxbaba haysan oo shiciba ama wuxuu doona hadeed hubaysnaynba wax kugu fiiqaba haynin markaad dilayso dee dagaal maaha halkaas kale waa gunnimo dagaalan waa ka ugu liita marka dadka waxa ka sii xun ee aad aragtay maxay ahayd waan kusoo waday dhigayso waxa ka sii xun gunnimo dagaalan hog gunnimo kasii dagaalana kii kaa mid ahaayee ciidanka ahaa markaad ku hoos noqoto intaad soo qabqabato aad meel ku xaraysteed layso waana taan kuusoo wadan sheekadeedu iminka aan gaari doonay dhegeyso qaybta markaanu cabaar taagnayn ba waxaanu aragnay baabuur xaajiyada oo shirkaliyaalaya oo cad oo inama yaryar qoryo dul ka saaran laba nin weyne la socoto baabuurkaasi halkan xerada koonfeed casta la yidhaha ee ka xigta gurigan dheer ee gaani halkan ka xigta iyo marba lowr ka soo qaadaya dada 10 ama 8 isku xidhan saa isugu xidhan iyo soo qaadaya wuuna soo hormariyey anagu markaa waanu aragnaa dadkan xaajada lagu sido laakiin weli maanaan fahmin la leenay markaa yarka bacdi baanu fahmi doonaaye markay laba lowrna la dhaaftay ay markay qiyaastii 20 mirir maqnaato iyo soo noqota markii kasta ayna dhaaftaba meeshan imika qaybta xaynka xigtay lafa laga soo saarsaaray ahayd ma garanaysa marka in yarna dhaaftaba waxaanu maqlaynaa rasaasta rasaasta waanu maqlaynaa kabacdi waxaana soo gashaa haddana xaajiyadiyo sida u maqiiqan xaggana inoo weydaarata annaguna barteenu weli taaganoo dee ciidankani baabuurtiidu saaran yaho taliyihii baa maqan baabuurtan dhaqaajin laha ma garanaysaa ee amarka soo qaadanayay annagoo bartii taagan bay soo martay iyadoo soo qaadin low nin markaa raggina la wada kaxayn doono kamida oo nin weyn ahaa ayaa igu yihi waryaahe dadkan maarata marba xaajiyadu inala dhaafayso waa la laynaya markaasaan ku yihi maahe mas-uuli wallaahi waa la laynaya bal iminka marka adigu halka inala dhaafto iminka ee albaabka ka baxda dhegeysa rasaasta markiibana way soo noqonaysaa markii ayna ag maraysay baan saa u ego waan tiriyey 8 yaa markaa ii muuqatay isku xidhan saa isugu xidhanoo saa isugu jeebaysan garbaha isugu dhabarka isugu haya wayna dhaaftay wallahi noocuu sheegaya marka malaa 20 mirin ama 25 mirin maaha naga maqnayd baanu maqlay rasaastii xooggeedii gagagagagagti rasaasta way soo noqotay annagoo bartii taagan baadana soo noqotay waa markii labaad maarata wayna dhaaftay halkii bay noo dhaaftay intay lowrkan ku maqnayd iyo annaga laftayda nin walba farta loogu yara lasoo kaxeeyey inama ilaa meeshii dadka la leenayana lagu wadaaye inamo ilaa qiyaasi 4 iyo 2 nin waaweyn oo inamada horkacaya oo tuuto wada gasha dhamaanta qoryiinista yaa intayadii baabuurta nin walba gaarigiisa laga soo kaxeeyey bal adigu waxna sheeg mashaabad baanu leenahay isaaqa oo dhabarka naga taala imika waa xamar ka niga waa xero ciidan oo dawladeed xero ciidan bad ku xigtay xero ciidan bad ka dhaxqabanay siiladaas kale bal laga soo dhaxqabto shaabad inaad leedahay moodo marka waran waan la soo iyagii baan sidee raashinka iyagii ciidankii baan sindaaba raashinkii wuxuu bari horan rugnay imika waxaan waa ciidankoodii waa ciidankii ha deedna nin walba farta loogu yeeray halkan la soo mariyay waa gaadiid dawladeed waa ina tarayadii gaadiidka qaranka waana la kaxeeyey waryaa nin magacaabaya ma jirto waryaa hebelow kaxee markaanu dhexdana la marinayay xerada koonfeed casta iyo meeshan markaa morgan fadhiyana waxay isu jiraan qiyaastii ilaa 300 mitir meelaas isu jiraan taanan qaldanayn askartana la dhex marinayay meesha sida siilado kale aan ku leeyahay ka buuxdana waxayna waar maxay aan kuwane kuwii nawadaba waxay leeyahay waa indhacsayaashii indhacsayaasha markaa islam iyo bay ka wadaan dee adugu isaaq magalaan si sheekadu u ekeyd markaan albaabkii xerada koonfeed casta meesha xerada kasii gelayna nala soo dhaaftay iyadoo lowr sida haddana xaajiyadii kii saddexaad ee nala soo dhaaftay waanu arkaynaa markaa halkay kasoo baxday xeradan kusii dhownahaye halkay kasoo dhaqaaqaysa iyo sida loo saarayo waanu arkaynaa ma garanaysa deedna kafur waa la helay markii albaabkan ay gurayso kii ku xigay yaana la geliyey albaabki markii sidaana looga furay baa waxaanu ugu tagnay askar tiradooda markaa wantay 8 iyo 20 askari oo tuuti xidhan sheekadii ninkiina way ugu soo dhacday
raggii la laayay afar-iyo-labaatanaad ka tirsanaaye ciidankaa ma garanaysa dhammaantood ragga aanu qolka ugu gallay axmed oo tuuti bay xidhnaayeen waa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed dulsugayaal waa dil sugayaal dee dadkan imikaaba socdaa dadka uga socdaaba qolkan la guraya bay ku xigaanba qolalkan kalena waa la soo dhameeyey iyagaa nagu doon noo sheegi dooneen dhammaantoodna dareskii dowladda soomaliya xidhan yihin ka fur baa qolka saas dusha loogu furo shantayadii baana lagu rixa shantayadii dar walba cidba 330 nin cagaha iskaga fadhida dee yaanu saacadii bar ku jirnay raggii nin ka mid ah ragga aad arkaysay meesha ku jira nin la hadlaya mana nin waliba iska geeriysay waa meydee suge nin waliba waad arkaysaa inay geeri ka muuqato oo waxaan ku ihi waa aad bay muruga u badantay dabeedna raggii nin ka mida baa ila hadlay wuxuu yihi waryaahe maxaa haydeen yani wuxuu garanaya inaanu anagu markaa dad shiciban oona darees karsanayn de iyaguna ay dhammaantood darees xidhan yihin markaasaanu ku nidhi waxaanu nahay darawaliintii baabuurtan iminka halkan maraysay wadatay u aamusay wuxuu yihi idinku maxaa haydeen baan ku idhi wuxuu yihi waxaanu nahay askar xeryahaana laga soo ururiyey anigu markaa weli aad igama dhaadhacsana in macal anaga nalaynayo sheekadu ya dareenkayga weli dareenkaa dilkaa weli maan qaadan askariga aanu iswaraysanay ka hor deedna wuxuu yihi waxaan ku ihi idinku maxaa haydeen wuxuu yihi adeer ciidamadan laga soo ururiyey ragga meesha markaa ku xareysan oo dhammaan anaa ugu yar maca darawaliintan aan wada soconay kale maca dee askarta meesha ku xareysnaa ee tuutaa wada xidhan waxaan ku ihi idinku maxaa haydeen wuxuu yihi ciidamadan laga soo ururiyey waxaan ku ihi maxaa laydinku soo xidhay kelmadii weli waan xasuustaa ma maqashay dhowdhowr weli kuma dhowdhowduba aduura weli kuma dhaadhicin maxaa laydinku soo xidhay baan ku ihi wuxuu yihi adeer naylama soo xidhine waa layna laynaya aad bay igu murugo keentay waa naxay waa nayla laynaya yacni adoon waxbaba samayn de oon meel laba calashaan iyo isri qabiilu lagu dilayaa calashaan isaaq baata iyo snm qolkii yaraaye ku xigay markaas laga gurayey xaajiyadu ka guraysay buu wuxuu igu yihi bal dhegeyso xaajiyad halkan imka albaabku wuxuu meelo yaroo daldalay ka arkayin mugta qolka yare inagu xiga buu yihi markay imika xaajiyadu kusoo noqoto bal dhegeyso dadka codkooda xaajiyadii baa soo noqotay anagoo bartii dee cagaas kaga fidhno bartii ku jirna dabaday la soo gashay saa markay uga degan ku watay waryaa fur albaabka fur soo saar sideed soo saar bar soo qabo sidii adhi xera laga safrayo odaygii lahaa dee garanaysa safar ka diranayo soo qabo kana soo qabo kana soo qabo oo maqlina codka dee codkii markaa axmedow wuxuu igu reebay wax maskaxdayda ka goy wada xusuusa oo aad u cajiib badan igu reebay waxaad moodaa shinida maaragtay marka la tuuliyo kacdo kale guux xaajadu markay dabada la soo gasho qolkaa yar waxaad maqlaysaa shahaado waxaad maqlaysaa laa ilaaha ila allah codad aad u argagax badan ayaan maqlay waan markaa yaqiinsaday inay saacadda iyadii tahay annagana marka kana soo dhamaado waanu ii sheego markay qolkani dhamaaday inaga ku xigna buu yidhi in yar ka bacdi baa show taliye ciidanka baabuurtan aanu ciidankii saarnaa cabdiwahaabkii moorgal ka soo baxay xafiiskiisa kadibna baabuurtii buu is yidhi ha socoto waxaa la yidhi baabuurtan raggii waday waa la kaxaystay nin imika la idhaa nin cali dirir la idhaa baabuurtan indho deero wada imika oo dhulbaandoo baharsamaa oo nin aada u fiican ahaa oo markaa abtina loo ahaa ba iyo nin kaloo axmed yare jiro isna dir buu ahaa oo darawalinta baabuurta ka mid ahaa ba waxay ogaadeen in la kaxeeyey oo meeshaa dadkaa laga soo saarta la laynayo na lagu daray bay ogaadeen cali dirir iyo axmed yare way israaceen cabdiwahaab taliye guutihii ciidankan watay oo morgan markaa kasoo baxa bay la kulmeen waxay dhahan taliye baabuurtaa shanta ah nimankii wadee darawalintaa waa la kaxeeyey maxay haayeen buu yidhi dee waxayna darawalin bay haayeen dee baabuurtan wadayo niman isaaq haayeen oo waa la kaxeeyo niman xaggaa u kaxaystay xaggee la geeyo meeshaasaa la geeyey xerada la galay morgan baan baabuur u doonanayaa buu oo ku noqday cabdiwahaab anigu ma garanay meeshan leedii waa la geeyey morgan baan baabuur darawalin kaxaysta baabuurta u doonanayaa morgan oo xafiiskiisii fadhiyo ugu galay